بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan leeyahay walaalayaal waa idin salaamay. maanta waxaan soo istaagay halkan hortiina ah inaan dalka iyo xaaladiisa aan idin la socodsiiyo. walaalayaal Soomaaliya qofna kuma seegana taariikhdeedii dhaweyd iyo wadadii aan soo marnay ee duruufaha kala duwan marba heer leh ahaa. dalkani dagaal sokeeye lagu kala miirmay lagu kala baxay oo soo maray dawlad ku meel gaar oo soo maray dawlad ku meel gaarnimadii ka baxday oo soo maray dagaal kala duwan oo noocyo ah oo soo maray shabaaba ugu dambeeyay ayaa dalka maanta jooga 15 sano ayay dalka joogaan. dadka Soomaaliyeed 15 sano jacaylkood iyo rabitaan dadka Soomaaliyeed ay rabaan kuma ayaan joogin. cabsi gelin tahdiid ceebayn يعني dadka karaama dilid ay ku joogeen boob dhac ay dhacaan ay ku joogeen. maanta ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto waxay u istaagtay inay karaamadeeda iyo sharafteeda iyo cizigeeda soo ceshato, inay diinteeda xafidato iyo caqiidadeeda suuban ay ilaashato ay u istaagtay. dadka Soomaaliyeed dhiigooda ay bixiyaan maadaama dhiigu iyo noloshu wax qiimo badan ay yihiin. shabaabna meeshaas inay dadka ka xanuujiyaan oo dadka boqol u dilaan abriya waxba galabsan suuqa joog xamaalanaya safraya jidka maraya waayo waxa ay dilayaan dhiiranaan kuma dhama inay ka hor yimaadaan ciidamada qalabka sida iyo shacabka Soomaaliyeed ee deegaanada degan ee kacay inta soo daba mariyayaan ayay jidka miina geli masaakiin safraysa baabuurkooda ku qarxo raashinka dadka loo wada xagga ku gub maxaan ku raacay ceelasha maxaan ku raacay dumi oo siib meel kasta oo laga eriyay ceelka biyaha ku yeelay ayay mabada ka sii sibteen. saaki ciidamada qalabka sida waxay joogaan magaalada Aadan Yabaal oo la og yahay taariikhdeeda iyo waxay ahayd iyo dadka Soomaaliyeed inta loogu yeero meeshaas lagu duleey jiray waa ka guureen waa ka huleelan kuma ayaan dagaalamin حتى ceelashii biyaha ku yeelay ay mambadi ka siibteen. dadkiina inta afduubteen ay ka xayaanayeen awoodiya ayagoo gaashaan ka dhiganaya dadka oo leh dadka haduu idinku dhex jiro lidama weerari karo lidama duqay karo lidama waxayn karo ayagoo leh. nimanku waa nimankaas awal waa ogeyn iyo Sooman teedaan dhulkii aan ogeyn ceelashii waxay ku sameeyeen waa ogeyn. baabuurta shacabku jidka marayso safarka eed oo adeeganayso tuulooyinka magaalooyinka oo adeeganayso raashinka sidii raashinka sidiis u saaran inay gubeen waad ogeydeen. maantana Aadan Yabaal ayay ka siibteen labadii ceelo ku tiilay bambooyinkii biyaha shacabkiina inta afduubeen ay ka haysteen. maalin walbana sidaas ay yeeli doonaan meelaha kale oo laga sii eriyay kuwii hore laga soo eriyayna sidaas ay yeelaan oo aan midaal soo qaato gobolka Hiiraan kuwaanina sida yeeli doonaan meel kasto ay ka cararaan sidaas ay yeelayaan. qiimaha aan bixinaynay kamid tahay nama niyad jibinayso nama cajis gelinayso. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed tagay way arkeen ceelashii way u dalbeen bambooyinkii waa loo sii wadaa waa la gelinayaa ceelasha dib loo kicinaya. qabaa'ilaa isdiriray ciidamada amniga waa kala celiyeen ceelalaha la gubay ceelashii dib u heshiisiin gobol waa waxeen waa hawsha dawladdu ay ku jirto. waxaan rabaa halkan inaan ka bogaadiyo uga mahad celiyo dawladda Hirshabeelle iyo dawlad goboleedka Hirshabeelle iyo dawlad goboleedka Galmudug oo madaxdooda iyo mas'uuliyintooda runtii u istaagay frontiga taagan oo ka soo laaban meena qarxaysa iyo xagga tagin aan hayna horay taagan meelaha ugu horeey frontiga ugu horeey maalin walba taagan daba taagan muxuu ahaa ciidanka. sidoo kale waxaan amaan iyo bogaadin u jeedinayaa Koonfur Galbeed dawlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo dawlad goboleedka Jubbaland oo diyaar garow aan caadi ahayn sameeyeen dadkoodana abaabulay ciidamadoodana abaabulay kaashanayana muxuu ahaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo meelaha qaarkood roobaba ka da'ay dhulku waa dhul carro madow ah oo dhiiqa aan la mari karin waa caqabado oo ciidamada ay horumarkii ay sameeyeen lahayn ay ka sameeyeen way jiraan. laakiin labadaas dawlad goboleedna waa meelana waa ka raacdeen shabaabkii inta kalena waa u diyaar gareysay waa ku soo socdaan. usbuucyada soo socda ilaa idinkiisa ciidana
warar aad iyo aad u fiican ayaa dadka Soomaaliyeed idinka soo gaari doono labadaas dowlad goboleed labadan dowlad goboleedna waa gabagabo waxa ku harahay waa wax yar galmudugna wax yar ka dhiman Hirshabeellana tuulooyin ka dhiman degmo Hirshabeelle ka tirsan ee saakay ciidanka xoog dalka Soomaaliya aanu gaarin ruudurgooda ka jirto ayadana waa saacado ilaahay idinkiis waa la gaaraya dowlad goboleedka galmudug degmooyina wali maqan waa lagu sii socdaa ayagana waxaan rabaa marka dadka Soomaaliyeed inuu sheego nimankaasi waa naga gudbeen waa tageen inaan taxadar badan muujinaro laba waxyaabood oo maanta dadka Soomaaliyeed ka codsanay waxay tahay midna in ay adkaystaan muddada gaaban xanuunka gaaban qarxay xagga dhigaan xaggay muxuu ahay jidkay meena u galaan baabuur qarxay meel la joojiyeen waxa waaye ruux baxoodii waay inay dul qaataan oo adkaystaan nimankan waa dhamaadeen waa magaciisi midda labaad dadka Soomaaliyeed waxaan rabaa taxadar inuu sheego dadka Soomaaliyeed shabaabku waa Soomaali shabaab kalkaalku waa Soomaali waana dad la garanayo sifooyin gaarana leh laakiin waxaan dareemayaa ama suurtagal ah meel qaarkood ka jiri karo dadka qaarkii ogaal la'aan inay shabaab ugu shaqeeyaan ogaal la'aan ayagoo shabaabka nacab ama dadkooda uu dilay ama ayaga uu muxuu qatar ku yahay oo cararaya haddana inay ogaal la'aan waxyaabo shabaabka taageeray ay ugu shaqeeyaan dad sharaf loo karaamo leh sawiradooda iyo hadaladooda inta soo qaataan inay website-yadooda soo geliyaan ayagoo ku faanayo dadka Soomaaliyeed oo walaalayaal ogaal la'aan yaana shabaab ugu adeegin haddaan nahay siyaasiyiin haddaan nahay ganacsato haddaan nahay shacbi caadi ah waan ogahay dad Soomaaliyeed oo tiro badan oo shabaab jecel ama raalli ka ami jiro laakiin anagoon ogeyn oo wax kale ka hadleen wax kale ka jawaabeen qof walaalo kale oo Soomaali oo ku xanaaqsanay u jawaabeen ka waxayneen yaana shabaab u adeegin kalmad kasta oo dadka Soomaaliyeed qaybinaysa kalmad kasta oo qayb dadka kamid ah qaybinaysa kalmad kasta oo dawladnimada arqalad iyo ceeb ku ah kalmad kasta oo cajas gelinaysa dadka iyo hamigooda iyo muxuu ahay waxay ku dhawaaqayaan ogaal la'aanad shabaab ugu shaqeeyo haysa ogaal walaalkeeyo walaasheeyo yaan loo shaqeynaa shabaab ogaal la'aan yaan loogu shaqeyn kii ogaal ugu shaqeyn waa garanayna waa kii shabaab kalkaalka ah oo sifooyinkiisa in badan aan ka soo sheekayno waa qaadicu dariiq waa kan dadka isku dira waa kan qabaabilka abaabulo isdila yira waay laakiin Soomaaliga muwaadinka ay sharafta leh ee ganacsadaha ah ee bulshada rayidka ah ee siyaasiga ah ee mas'uulka meelaha qaarkood ka ah waay kan la hadlayo leeyahay hala taxadaro ogaal la'aan yaa shabaab loogu shaqeynaa waxaan guud ahaan amaanaya hay'adaha dawladda dhammaan hadday yihiin sharci dejin hadday yihiin fulin hadday yihiin maxaan ku raadayay garsoor intaba maanta u taagan muxuu ahay dagaalka shabaab waa ku amaanaya dhiiranaanta iyo codka ay banaanka ula taagan yihiin laakiin walaalayaal Soomaaliya xaalad caadi ah kuma jirto xaalad ay isxoreynayso oo gobonnimadii sovereignty-geedii ay soo ceshanaysay ku jirtaa xaaladaasi waxbay naga mudan tahay waxaan leeyahay dagaalka shabaab kula jirno dadka Soomaaliyeed walaalaha Soomaaliyeed markasta waxay ugu baaqayaan inay taageeraan banaanka u soo istaagaan heela qarsoon heela maaha horaya loo yiri Soomaalida kuma maaday banaanka la soo istaag maalinta dhimanay ka hor dhiman maysid hadii aan yiraahdo waxaan kaloo rabaa dadka Soomaaliyeed marka maanta in halkan uga sheego walaalayaal shabaab waa taariikh waa history waa tagay taariikh waa tagay haddii dadka qaarkiis lagu cabsi geliyo way soo noqonayaan beri deegaanka soo miiga meelaha deegaanada qaarkood la sheegay akhyaar waa soo noqonayaan nimankii yaan insaan la yeelin yaan kaas la yeelin beri imaanayaan soo noqon maayaan ma soo noqonayaan waa tageen ilaahay idinkiisa عجز قليل واي مركا ما سو نقونيان وسو نقونيان iyo cabsi gelin iyo عجز قليل واي dadka dhahay deegaan hebel dagaalka uma diyaar garoobin iyo waa عجز قليل waay dadka Soomaaliyeed si qalbi ah oo niyad ah
أي دجالك استعجل دت كاين قلبي جود إن يدوده أن توسنه أن سيقول حن شباب ويسن ما أنت مركب دت كصوماليا مسؤولين هديتها حكومة هديتها برلمان هديتها محن كور هذا قيبها كردون الدولة هديتها بالشدة ريتك قيبها إذا كردون أيضا ضمان وحن لا ما أنت أن لبا وحيا بتكفكرن أو اسكو مالك صور ضمانية مدة كوبات أن كفكرنه شباب واحد لما هذا واتجي وتاريخ بل كان سنينا شباب كان بعدي ما حن سمينينا شباب دبدي ما حن سمينينا ديبوشيسين مامور للست شرع الدجن هجاجين هرومارين ما حن كور هذا استابلايزيشن كما دجناشي دجانا شباب كتجي ما عنده ودن وكالي دجانا شباب وكتجي دجانا سكول ماله برعاف ماله علبيا ماله دكس قرآن كحتى ماله قرآن سق الله عن وعقيدة الله عن ذاتك بريس انت اللي دكسيدا حتى ذاتك لا يحرق اسكت ده وحكله انت صوت ما انا صاقب من السوريين مالك استو قويس السو مالي يكونوا لي سكول انه هلان عروتودا وحبرتان دكس قرآن كود انه شقايو او معلم كود iyo nidaam kooda la hagaajiyo bar caafimaad ugu yaraan caruurta laga talaalo yaryarka ah oo maxaan ku iraahdaa gabdhuhu ay meel ay ku umulaan ay helaan oo aan baabuur jid raf lagu soo qaadin gabar foolanaysa dowladda mas'uuliyadda saaran oo shabaab dabadeed inaan ka fikirno ay tahay taas waa dadka Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa had diyaar garoobaano sida shabaab ugu kacnay oo ugu diyaar garownay shabaab kadib sida u dhisanayn dalkan aan u diyaar garownay shabaab waa tagay waxaan sugi waxay tahay dalkeen dadkeeni iyo deegaanadeeni oo 15 sano oo duleynay oo wax walba u diiday oo wax walba ka soomiyay inay waxay waayeen xuquuqda ay muwaadiniinay lahaayeen inay helaan waaye mid dad taas aan ku mashquulno aan ka fikirno diyaar garowga la sheegay taas aan u galno hadda dad walba Soomaaliyeed inta isku tagaan deegaankoodii tuuladoodii sidii ay ceel ugu qodi lahaayeen ama muxuu ahay iskuul ugu sameyn lahaayeen ama bar caafimaad ugu ka shaqeeyaan dawladuna karaankeeda wixii ah waa la imaanaysaa waana la taagantaa ka gaabin mayno muxuu ahay ilaahay idinkiisa laakiin waxaan dadka Soomaaliyeed fikirkooda gidaan u baahanaa waa midaas qodobka labaad waxa waaye dalkeena deyn fara badan ayaa lagu lahaa muddo 10 sano aan aad ula soo tacaalaynay deynkaasi inaan gudno sidii aan ku meel gaarnimada uga baxnayba deynka sidii aan isaga looga cafin lahaa gudid ma ahaanayna looga cafin lahaa ayaan geed gaaban u taagno taramkii hore aniga madaxweynaha ay ka soo bilaabo taramkii iga dambeeyo madaxweyne farmaajo joogo ku xiji hadda kan aniga aan soo noqday intaan joogo hadda ku sii xiji intaasoo dhan dagaalo isdaba joog ah ayaa waxaa laga sameynayay sidii deynta dalka iyo ummadan looga cafi lahaa deynka ma aha kaliya caqabado albaabo badanaa naga xiran oo aan maxaan ku irahdaa horumarinta iyo dib u dhiska dalkan aan u kaashaday deynka marka in aan laga cafi yahay waxay ahayd arrin aad iyo aad u bood deyn cafintiina way soo dhamaatay bilaa noo haray waxaan rajaynaynaa dadaalka aan wadno iyo inta yartaa noo dhiman oo qawaaniinta qaarkeed oo baarlamaanka taalo in la gudbiyo baarlamaanka uu gudbiyo la rabo ay ka mid yihiin aan rajaynaynaa baarlamaankeena maalmaha iyo isbuucyada soo socda inuu ku mashquulo anuu gudbin doono yaa nooga dhiman kadib marka sida aan hadda u lahaa shabaab mugaan deegaanada iyo dalka ka bixino dabadeed maxaan sameynaa oo aan uga hadlayo waxaan sameynaa deyn cafinta dabadeed maxaan sameynaana waa su'aal kaloo taagan 5 bilyan oo dollar ayay ahayd deynka aan cafiskiisa raadinayn oo inta badan hadda nalaga cafiyey inta dhimanna bilahaas aan sheegay gudahood nalaga wada cafin doono Soomaaliya wixii hadda ka horeeyay awood uma lahayn inay inta lacag soo deynsato warshad ku dhisato warshadeedaas hadhow badeecada muga iibsato deynka iska guddo awood uma lahayn Soomaaliya fursadii awood uma lahayn deyn inta soo qaadato dekad inta ku dhisato dekadaas lacagteeda qaarna ay isticmaasho qaarna ay isaga bixiso muxuu ahay deynkii fursadaas maanta ma furmayso waxaan rabaa marka dadka Soomaaliyeed walaalaha meel kasta ay joogaan
iyo hay-adahooda xukuumaddu ay ugu horeyso already shaqadaana haysa hadda oon aad iyo aad ugu ammaanayo shaqada deyn cafinta meesha ay iyo doorka ay xukuumaddu ka qaadanayso iyo doorka baarlamaanka nafsadiisa uu ka qaatay inta dhamana aan rajaynayno inuu si buuxda oo deganaanshiina uga qaadan doono walaalayaal waa waajib wadani qof kastoo muwaadina mas-uuliyadda saaran tahay midka shaqadaasi iskalena si gaaray u saaran tahay waxaan rajaynayaa baarlamaanka federaalka soomaaliya shuruucdaasi inay dhaqsi ka soo dhammaadaan si waqtigu noogu soo degdego waqti badan ma haysano marka waxa aan laga fikraa anu lahay maxay tahay 5 bilyan aan la tacaalayna 10 sano ka badan in laga cafiyo deynaan qaadan doonaa ilaa dalka inaan dhisnaan u baahana awoodeena dhaqaale degdeg uguma dhisan karno adduunyada dhammaan ku macaamisha deynta hay-adaha laga kala qaato oo muxuu ah waxaan tan ugu qabsada la iska gudo 5 bilyan aan ka qeynay 100 bilyan oo dollar aan helaynaa oo deyn ah intaan soo qaadana maan iska cunaynaa mishaaraad maan u kala qaadanaynaa daara dhaadheer maan ku dhisanaynaa maxaan ku samaynaynaa waxaan ku samaynaynaa dalkaan ku dhisaynaa waxaan gelinaynaa meel dakhli ka imaanayo oo aan deynka iska gudi karno waxaan gelinaynaa meel dadkeena adeegyo ay u baahnaayeen oo ka maqan ay ka helayaan dowlad goboleedyada dalka oo dhan inay isbitaallo waaweyn oo referal hospitals ay helaan jaamacado dowladeed oo aad iyo aad u camiran oo dadku lacag la-aan ku dhigtaan inay helaan waxbarasho waafi ah oo macalinkeeda iyo shaqaalaheedu ay qanacsan yihiin inay helaan waxaasoo dhan waxaa u asala dhaqaale deynka aan qaadanayno kow muhiimadda waxaan ku saynaynaa dib u soo kabashada dhaqaalaha inaan dib ugu soo celino si aan tacliintii iyo caafimaadkii iyo adeegyadii cashuur dowladeed oo ku filan aan u helno dadka soomaaliyeedna nolol fiican ay u helaan hay-adaha dowladda iyo hay-adaha bulshada rayidka iyo deegaanada dhammaan waxaan rabaa inay haystaan wixii oo loo maalgeli lahaa ganacsatada si gaara weliba mashaariic waaweyn oo la maalgeliya inay la yimaadaan dowlad goboleedyada iyo deegaanada sidoo kale marka waa arin ayadana inaan kasii fikirno oon u diyaar garoono u baahan way soo socotaa waana soo dhowdahay weliba waxaan rabaa hadalkeyga inaan kusoo guraado soomaaliya ilaahay idankiisa waa gaari karnaa soomaaliya barwaaqa ah ilaahay wuuna siiyey wixii aan ku barwaaqoobi lahayn oo dhan ilaahay wuuna siiyey hadday tahay bar hadday tahay beer hadday tahay bad hadday tahay barwaaqo iyo macaalin dhulka hoostiisa ku jirta caqligii deganaanshihii heshiiskii iskaashigii aan ku gaari lahayn aa nalaga rabaa walaalayaa 32 sano muddo dheer waay 32 sanaan kusoo jirna buuq iyo qaylo iyo looma dhama iyo waa diidnay iyo waa yeelnay nooma noqoto dadka soomaaliyeedoo walaalayaal nooma noqoto looma dhama iyo waa diidnay iyo nooma noqoto horey aan u soconno maanta waxaad weysa beriyaad helaysaa adduunyadaadu beri ha lahaato maanta way ku ekaana maanta wax waaye bis waa dhammaatay ma aha maanta haddaad wayso beriyaad helaysaa maanta haddaad haysato mas-uuliyad dowladeed iyo magac dowladeed beri ma haysanaysid maanta haddaadan haysanina macnaheedu maaha beri inaadan helayn fogaan arag aan yeelano beriyaa soo socoto ilaahay idankiisa waana beri qurxoon aad iyo aad u qurxoon dadka soomaaliyeed waxaan u sheegaa 2 arrimood kale walaalayaal wax kasta oon shaqa oon dalka ka hayno sidii aan u suubi jirnay intaan fiirino qiimayno si ka duwan aan u suubino haddii sidii aan u suubi jirno u samayno wixii aan heli jirnaan helaynaa wixii aan heli jirnana ma anfacayso 32 sano ka bacdi waa waxaan meesha u joogno wardadoo dulqaad war maanta waxaad rabtaa haddaad weyda adduunyada inay dhammaatay maaha beriyaad helay beri fiicanaa soo socoto ilaahay idankiisa aan isbedel keenno isbedelku waa xanuun badan yahay waa qiimi badan yahay laakiin waa inaan hurnaa haddii kale meeshaanan joogaynaa waa qabaan leenahay kulligeen
qof qabaan u leenahay laakiin qaran ahaan aan qab u yeelano qaran ahaan aan qab u yeelano adduunyada aan la tartamo tartanka dhexdeena oo degmo la tartamo qabiil la tartamo intaan joojino dunida aan la tartano waa nalaga tagay nalagamana tegi karo sababna looga tagaa ma jirto taasi waa midaas waxaa kaloo dadka Soomaaliya u sheegay fogaan arag inaan yeelano Soomaaliya 1960kii ayay xurriyad qaadatay dowlad noqotay 62 sano ka soo wareegtay waxaan u baahnaa markaan dowladnimada sidaan ugu fikiri jirnay si ka duwan inaan ugu fikirno walaalayaal 2060 haddii la gaaro ilaahay idinkiis waa la gaarayaa Soomaaliya 100 sano ayay xor tahay dowlad tahay maanta dadkeena jooga mas'uuliyadana saaran oo aanan ka gabakar waxay tahay inaan ka fikirno oo maskaxdeena ku dejino Soomaaliya see ah noocee ah ayaan rabnaa 2060 in la gaaro in la arko Soomaaliya noocee ah ayaan rabnaa 38 sano ka bacdi in la arko waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inay ku fikiraan Soomaaliyadaas naqshadeeda inta la sameeyo maanta dhismaheeda in la bilaabo